shirka golaha wadatashiga qaran oo goordhow ka furmay magaalada Muqdisho iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya oo go'aan cad ka qaadatay maamulka Jubbaland kadib diidmadii madaxweynaha maamulkaasi Axmed Madoobe uu diiday inuu ka mid noqdo ama uu ka soo qayb galo shirka golaha wadatashiga qaran uu horaantiiba isaga baxay shirkaani uu dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. warbixin ku saabsan shirka golaha wadatashiga qaran iyo waxa looga hadli doono ayaa maanta jecelahay in la wadaago daawada soo dhawow haddii ay tahay markii ugu horeysay beeshka Flowdeh laakiin saar muuqaalka siina shargaray si saaxiibada kale uu gaaro. magaalada Muqdisho goordhow waxaa ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran kaas oo isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada dalka ee qaybta ka ah dawladda dhexe ee Soomaaliya marka laga reebo maamul goboleedyada Jubbaland iyo sidoo kale Puntland. waxaana shirka maanta ka soo qayb galay maamul goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeelle. waxaana shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay wehliyaan ra'iisul wasaaraha dalka Xamza Cabdi Barre iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. shirkan oo horey ugu socday magaalada Muqdisho ayaa hakad ku yimid muddooyinkii ugu dambeeyay kadib markii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu sheegay in dib u wadatashi ay ku maqan yihiin hogaamiyaasha maamulada dib loo soo laaban doono shirkaani 27ka bisha haatan ku jirnay maanta ay ku beegan tahay. balse arrintan ayaan imaanaysaa kadib markii madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shirka dib isaga baxay dib loogu laabtay magaalada Kismaayo ee maamulka kumeel gaarka ama xarunta kumeel gaarka ee maamulkaasi Jubbaland. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa socday waan iyo sidoo kale qancin dhinaca Axmed Madoobe ah oo lagu qancinayay in uu shirkaasi dib ugu soo laabto. waxaana qayb ka ahaa ganacsato iyo siyaasiyiin iyo odayaal dhaqan oo Axmed Madoobe kala hadlay in uu dib ugu laabto magaalada Muqdisho kuwa oo erga ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo uu diray. sidoo kale erga ka socotay beesha caalamka oo ugu horeeyay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swam ayaa qayb ka ahaa qancinta iyo wada hadalka Axmed Madoobe si uu dib ugu soo celiyo magaalada Muqdisho qaybna ugu noqdo shirka golaha wadatashiga qaran ee lagu balansanaa in maanta dib loo soo in dib la isugu soo laabto. balse arintaasi ayaa fashilmay. Axmed Madoobe ayaa go'aan adag ka qaatay inuu shirkaasi dib ugu soo laabto laakiin madaxda dalka uu hogaamiyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana u muuqda inuu go'aan cad uu ka qaatay madaxweynahaasi maamulka Jubbaland Axmed Madoobe si uu hore go'aan ay ugu gaareen maamulka Puntland oo labadii sano ugu dambeeyay ka maqnaa shirka golaha wadatashiga qaran. waxyaabaha maanta shirka looga hadlay ayaa waxaa ka mid ah amniga dalka iyo sidoo kale arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale iskaashiga iyo waxyaabihii ugu dambeeyay dalka iyo arrimaha doorashooyinka. waxyaabaha ay isku qabteen maamulada kale ee dalka ka jira sida Jubbaland iyo Puntland. dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa ka mid ah arrimaha doorashooyinka. Jubbaland ayaana ku andacootay in ay rabto in ay qabsato doorasho madax banaan ayna diiday wax la yiraahdo muddo kororsi. shirka golaha ayaana hore looga hadlay in maamulada dalka in la siiyo muddo kororsi maadaama muddo xiloodkoodii loogu talagalay uu dhamaaday ayna haatan hal sano muddo kororsi la siiyay. laakiin madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa sheegay in haatan uusan doonayn wax muddo kororsi ah uu hore u siiyay baarlamaankiisa balse haatan uu go'aansaday in uu qabsado doorasho u madax banaan. waxaana arrintaasi ku taageeray maamulka Puntland oo sheegay in garab istaag uu muujinayo maamul goboleedka Jubbaland. muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa khilaaf xoogan u dhaxeeyay maamulka Puntland oo aan la socono in Puntland ay hore u sheegtay in ay xiriirkii u jartay dawladda dhexe ee Soomaaliya. haatan waxaa muuqata inay ku soo biirtay maamulka Jubbaland oo uu hogaamiyo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Islaam. sidee u aragtaa shirka golaha wadatashiga qaran oo maanta dib ugu furmay magaalada Muqdisho iyo go'aamada ka soo bixi kara waa ilaa haatan la ogeyn daawade haddii uu yahay muuqaalka markii ugu horeeyay ku soo gaaro like sar share garay si saaxiibada u gaaro ku maasantaa daawashada.